wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa si rasmi ah galabta u furay bariishka labaad ee magaalada Burco ee Deero oo muddo dhowr bilood ah xidhnaa kadib markii roobab xoog leh oo magaalada Burco ka da'ay waxyeeleen bariishka. wasiirka ay weheliyaan barasaabka gobolka Togdheer xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco injineerka dayactiraya bariishka ayaa kormeer kala duwan ku maray qaybaha bariishka iyagoona halkaasi kula hadlay warbaahinta. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan munaasabadan ku saabsan dib u dhiskii ama dib u hagaajintii bariishyada Burco ee daadadkii waaweynaa guga iyo kuwii karantu waxyeeleen dib loogu qabanayo munaasabadan ku saabsan ee uu wasiirkii wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka uu isagu ka ahaa wasaaradda iyada loo xil saaray ee hawsha wadata ee kontraadka bixisay xilka qaaday bilowgii dhibaatadu markii ay dhacday ilaa hadda oo aynu maanta marayno nala jooga wasiirka hawlaha guud Cabdirashiid Qambi wasiir macaani wasiir waa kugu soo dhaweynaynaa waxa ilaahay baa mahad iska leh run ahaantii bariishkan Deero oo ah sidan hore u sheegay bariishka labaad ee Burco ugu weynaa baahi aad u badan bay dadku qabaan gaadiidkii iyo magaaladu way kala xidhnayd marka run ahaantii imka sida dhismahan dib u habeynta ka muuqata si ku meel gaar ah sida injineerku sheegay ayaan insha Allah taala labada bariishba loo dhisay waxay ku dhaqsadeen maadaama oo uu bariishku xidhnaa dhibaatana ay ku qabeen gaadiidka iyo dadweynuhu ay ku qabeen oo waxa weeyaan aad iyo aad baahidiisa loogu baahnaa in dib loo furo waxay ku dhaqsadeen in si temporary shaqadii ugu baahnaa ay u qabtaan oo si temporary dib loogu furo bridge-kii maanta laga bilaabana si rasmi ah ayuu bariishka labaad ee Deero bridge ugu furan yahay dadweynaha gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweynba inta shaqadiisa la wado haddii ay ilaahay bay nagu keenay ay timaado baahi dib loogu xidhaa waynu ka harisan doonaa anagoo talada ka qaadanayna wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka iyo shirkadda gacanta ku haysa bariishada Hirad Construction wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa isna sheegay muhiimadda bariishkani leeyahay. waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Hirad Construction oo muddo imika 6 casho laga joogo aanu u fasaxnay lacagta bariishka imikana aroortii haddii la yiraahdo gaarsiiyay in la mari karo bariishka ama galabtaba la mari karo dadaalka ay muujiyeen shaqada ka socota imika aad aragtaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadoo aan meel la barjad ugu jirin iyadoo lacag u asayn garaysan ama u qorshaysan aanay jirin arrinka hirgeliyay in sida ugu dhaqsaha badan uu u hirgeliyo oo uu u fududeeyo oo dalkeena waad ogtihiin suuf iyo xanjo wuxuu isku xidhayba hirgeliyay in lacagtan uu sii daayo yaan u mahadnaqayaa waxaan halkan uga mahadnayaa shirkadda Hirad oo muddada kooban annagoo hawsha gacanta ku haynay isaguna mas'uul nooga ahaa ku hirgeliyay in la maro muddo 5 casho gudaheeda in lagu maro bariishka oo damage weyn gaaray isaga kalaba iyadoo kii kalena la bilaabi doono. si kastaba ha ahaatee wasiirka hawlaha guud iyo dhulka Soomaaliland ayaa ku guuleystay inuu furo bariishka Deero ee magaalada Burco oo muddo xidhnaa. Mahad Cali Goodir Star TV Burco.